waa hagaaga saxaabta maasha allah mid ka mid a dadka nagu xiran ayaa markaa wuxuu soo weydiiyey in aan ka hadlo gabadhan laga jabsaday youtube-keedii marka wuxuu dhahay gabadhaas ayaa youtube laga jabsaday niyo youtube-yada sidee la iskaga jabsadaa qaabkee waayes maxaa dhaco okay horta marka waxaan ka hadlaynaa oo aan isweydiinaynaa yaa jabsada horta yaa jabsaday youtube-ka gabadhaasi ama youtube kastaba sidee loo jabsadaa qaabkee lagaaga jabsan karaa youtube-kaagii haddii sometimes la jabsado ma in la jabsaday bes ayuu youtube-ka qadka kaga baxaa mise hab kale oo uu qadka kaga baxo ayaa jirto so su-aalahaasi ayaan isdul taagaynaa inow dad baa i dhihi doona shaaciyo tobigaagi ma ahan tobigan laakiin qofkii i garanaya ima dhihi doono qofkii ugu cusub oo a i garanaynin inuu idhaha waa laga yaabaa laakiin waxaan waa wax in muddo ah aan kusoo jiray muuqaalo badan ka sameynayay so insha allah horta waxaan ku bilaabaynaa su-aasha koowaad oo ah yaa jabsaday youtube-ka marisha iyo ama youtube kasta yaa jabsadaba horta number one youtube-yada haddii youtube-yo caan ah ay yihiin oo lacag badan oo badanna sameeyaan waxaa laga yaabaa qolyo south african ah nigerian ah in ay kaa jabsadaan waa macquul taa horta ha iloobin ku dar sidoo kale haddii dadkeena yaryarka ah youtube-yadoodii uu yahay yaa jabsan kara waxaa jabsan kara qof emailkaagii og ama telefon numberkaagii og ayaa jabsan kara ama qof aada kuugu dhow aad dad kale ka aaminsan tahay markaa sidaan leeyahay ha ordin ku sheegayaa sababta qofka adiga kuu dhow wuu kaa jabsan karaa because wuxuu ogyahay emailka aada isticmaasho sidoo kale hal sir oo inta badan dadka aan ka hadlin oo youtube-yada facebook-yada waxyaabahaas o dhan la iskaga jabsado ayaa jiro maxay tahay marka waxay tahay waxaa waaye ani adiga waa isku fiican nahay dad saaxiibaan nahay friends ah aada isku garanaya waxaan ku leeyahay telefonkaagii ii dhib igama baqaysid si kale iima aragtid waa ii dhiibaysaa isla same time waxaan sameynayaa gmail-kaagaan galayaa forget password aan dhahayaa kadibna waxaan bedelayaa passwordkii ilaan lambarkaagaa la iigu soo dirayaa everything telefonkaaga dhanaa gacanta ku hayaa wixii aan bedelayaa passwordkii mar alla markaan ka dhamaado passwordkii waa xasuusanahay gmail-kaagii waa aqaanaa telefonkan ku siinaya adiga marka facebook-gaagii ama youtube-kaagii wuxuu ku yahay mid shaqeynaya kadibna aniga waa iska baxayaa adiga maaragtay aamin daro kuma hayso waxaad isleedahay waa iska normal xaalka soo marka waxaa dhacayo 3 beri 4 beri kadib in aan galo kadibna aan kaa bedesho passwordkii aan haysay hadhow markaa gal isdhahdaba hawadu ka baxayaa waxaa lagu leeyahay passwordkaani waa la bedelay qaab loo jabsado weeyaan qaabka kale loo jabsado waxay tahay qofka emailkaagi ayuu yaqaanaa wuxuu kuu soo dirayaa wuxuu rabaa inuu isku dayo inuu jabsado meel kaluu ka gelayaa kadibna waxaa lagu soo dirayaa link markii lagu soo diro qofkaas linkiga kuu soo diraayo waa qof gmail-kaagi yaqaano oo si fiican kuu yaqaano oo barnaamijkaagi dhan haya soo dadkaas ayaa jabsan kara marka ugu horeyso marka sidee loo jabsan karaa marka waxaa loo jabsan karaa waxay tahay in emailkaagi laguu soo diro ama email laguu soo diro sidaan haddaay sheegay telefonka lagaa qaado
ama email lagu soo diro yaa kuu soo diray youtube-ka kuu soo diray because forget password aa leeyahay halkaas laga galayaa mar alla marka halka laga galo adigii marka waxaad sameynaysaa waxa kuu soo dhacayo emailka marka wuxuu dhahayaa waxa laga galay meel hebel uu ku sheegayaa waa hal email ama emailada qaarkood waxay ku leeyihiin accepted aqbal that's me wili waxa ku qoran that's me yaa ku qoran that's me ayaa ku qoran meel hebel laga galayaa that's me macnaha qof ayaa isku dayay in emailkaagii uu galo ee adiga miya aniga miihi that's not me iyo that's me labadaas ku soo baxayo then adiga waa mashquulsan tahay waa fiin aniga waa leedahay waa ku dhufanay baashaad dhan saas la wareegay qadka ayuu ka baxayaa tan kalena marka waxay tahay mararka qaar lagama jabsanin waa la isku dayay tusaale ahaan marka hadda gabadhan aad ii soo dirteen informationkeeda waa la jabsaday aad leedihiin waxaa laga yaabaa in ay hurdaysay telefonkeeda la isku dayay emailkeeda la isku dayay in la jabsado marka maxaa dhacaya mar haddaad hurdayso telefonka aadan ka warhaynin oona la isku dayo in lagaa jabsado waxaa dhacaya waxay tahay waa la isku dayayaa mar koowaad emaila kuu soo dhacayo waa ka jawaab weynaysaa mar labaadaa lagu soo dirayaa waa ka jawaab weynaysaa ilan waa jiiftaa ama waa mashquulsan tahay war uma haysid mar saddexaad ayaa waxaa lagu soo dirayaa email kale waa maaragtay ka jawaab weynaysaa then youtube-ka ayaa tallaabo qaadaya mar hadday sheekadu meesha gaarto youtube-ka ayaa tallaabo qaadayo oo youtube-ka wuxuu leeyahay qofkan isaga ma ahan dad baa isku dayaya youtube-ka marka wuxuu sameynayaa inta youtube-kaagii la jabsan lahaa hawaday ka saarayaan marka you fear me waxaan kuu sheegaya waa fahmaysaa soo maahan youtube-ka hawada ayay ka saarayaan youtube-kaagii sababta marka youtube-ka hawada uga saarayo youtube-kaagii maxay tahay number 1 waxay diidayaan in youtube-kaagii la jabsado number 2 waxay diidayaan in barnaamijkaagii xogtaadii oo dhan qof kale gacanta ay u gasho number 3 account kuugu jiro bangiga information kuugu jiro in bangigaagii information in qof kale uu kaa xado ayaa la diidayaa so youtube ayaa marka wuxuu sameynayaa barnaamijkii oo dhan hawadu ka saaraya ninkiina ma helayo adigana ma helaysid hadday saas dhacdo ma la xallin karaa waa la xallin karaa youtube aa lala xiriiraa inaa adi leedahay ayaad caddeynaysaa kadibna waa easy in hawshaadii lasoo fududeeyo kadibna youtube-kaagi uu soo laabto so maxaa marka kula gudboon number 1 waxaa kula gudboon waxay tahay qofka telefonka aa u dhiibaysid haddii telefonkaagii qof aa u dhiibtid iska ilaali wuxuu sameynayo la socoba gabi ahaantiisaba haddii kale haba u dhiibin ya aaminka kii la yiraahday wuxuu dhintay 1991 dagaalkii Soomaaliya iyo markuu dhacayay gudaheed Soomaalida civil warkii dagaalkii sokeeye markuu dhacayay ayuu dhintay aamin adigana dil ha u dhiibin telefonkaaga because wuu ka jabsanaya number 1 number 2 link hadduu kuu soo dhaco fiiriya text message ahaana lagugu soo dirayaa email ahaana lagugu soo dirayaa facebook ahaana lagugu soo dirayaa whatsapp ahaana lagugu soo dirayaa telegram ahaana lagugu soo dirayaa snapchat lagugu soo dirayaa instagram lagugu soo dirayaa so wax link la yiraahdo hataabanin wax link la yiraahdo hataabanin haddaad linka taabato nabaday salaamo adaa gacantaadii baxar isku geliyay linkiyada waa la qurxiyaa qaabka loo qurxiya waxay tahay waxa lagu leeyahay linkigan waa maaragtay Amazon waay mana aha ya Amazon YouTube-kan waxaa lagu leeyahay Facebook Messenger waay mana ahan been waa waxaas oo dhan so iska ilaali ha taabanin linki oo dhan inaa badbaado hadaad jeceshahay haddii email kuu soo dhaco emailka markii notificationka uu soo dhaco uu soo dhaco meesha ha taabanin because waa open garaynaysa ha open garaynin
faraha ka qaad gudaha emailkaaga gal fiiri open garay markaa furto link haduu yahay ama fariin dhehaysa adiga miya mise adiga ma ahan dhehayso hadii adiga aadan ahayn aniga ma ihide hadad adiga ma ihi aad dhahdo YouTube-ka marka wuxuu ku leeyahay reset ku samee password forget reset ku samee password cusub samee isla markii password cusub samee dhag si habe taada kale two factory authentication ajiro waxyaabo maarad oo aad u xoojiya YouTube-kaaga inaan la jabsanin 3 password 4 password oo lagu xiraa jiro hadii aadan garanin waa iisoo sheegi doontaan waa idin tusi doonaa insha Allah so qaababkaas ayaa la iskaga badbaadin karaa qaabkii hore aan usoo sheegayna waa qaabka lagaga jabsan karo YouTube-kaagi intaan dib dambe u kulmi doonana waxaan kaaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye